السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan يا saaxiibayaal inaad fiican tihiin. waxaan halkeenni ka sii wadaynaa haddii alla idmo taxanaheennii aynu kaga hadlaynay taariikhda dhulka Soomaali galbeed ama ogaadeeniya kolba sidaad u taqaano. waxaan inoo dambeysay qaybtii 6. haddana waxaynu qaadan doonaa qaybtii 7 oo ah tii ugu dambeysay. qaybtii 6 oo ahayd tii u dambeysay waxaynu ku soo sheegnay ama aynu soo qaadaa dhignay madaxdii soo martay deegaanka Soomaalida markii laga reebo Mustafa Maxamed Cumar oo hadda jooga. waxaynu sheegnay inay soo mareen madax kala duwan tira ahaanna aynu ku sheegnay inay ahaayeen 11. waxaa jiray nin 16 bari kursiga ku fadhiyay oo Cabdi Ilay uu kaga tagay. isku daro maca 16 bari joogay ku daro 12 madaxweyne ee soo maray deegaanka waxay xilka hayeen 16 sano. isu geeyntooda oo dhan 16 sano ayay xilka hayeen. hadday dhammaysan lahaayeen oo sida caadiga ah ee xil loo qabto ay u dhammaysan lahaayeen 3 madaxweyne oo xilkoodii dhammaystay iyo mid hal sano maraya 4 may noqon lahaayeen. sababtoo tahay 3 madaxweyne oo 5 sano jooga waa 15 sano iyo mid hal sano jooga 16 kaasay noqon lahaayeen. halka ay 11 madaxweyne noqdeen. Mustafa hadii lagu darana ay noqonayaan 12. waynu ka soo sheekaynayoo qaar baynu ku sheegnay bade hal sano ay joogeen, qaar baba ka siyaaro 8 bilood ku sheegnay, qaar baynu waxaan maynayaa ninkii ugu xil dheeraa Cabdi Ilay buu ahaayo 8 sano yuu joogay. Mustafa hadda ku dhadhow asaguna hadda 7 sano mi maraya wax noocaas. aan ka gudubnay waxaynu sii guda galaynaa ka warramidii madaxdii soo martay deegaanka. waxaynu soo sheegnay 5 madaxweyne oo nin walba xilkiisa iyo intuu joogay aynu halkan ku sharaxnay. waxayna ugu dambeeyay madaxweyne Ciid Daahir wuxuu xilka qabtay taariikhdu markay ahayd 1995 ayaa xilka loo dhiibay waxaana laga qaaday. taariikhdu markay ahayd 1997 madaxweyne Ciid Daahir wuxuu maray meeshay mareen madaxdii ka horeysay oo waxaa loo taxaabay jeelka. nasiib darro intuu joogay muusan hagaajinin jeelasha ay madaxdu gelayaan. mid walba xilka dhammaystana dee wax u qoran bay ahayd inuu galo jeelka. taariikhdu markay ahayd 1997 oo ahayd xilligii laga qaaday xilka madaxweyne Ciid Daahir waxaa loo doortay oo loo dhiibay ama loo magacaabay madaxweyne Khadar Macallin. Khadar Macallin wuxuu xilka waayay ama laga qaaday 2000 markay taariikhdu mareysay. isaguna 3 sano ayuu joogay. sidoo kale madaxweyne Khadar Macallin asagana waa la xidhay. waxayna ku eedeeyeen sidii kuwii hore oo kale karti xumo iyo in onalif la kuleeyahay waxyaalo deemaala yacni ah. kadibna isagoon maxkamad la geynin ayaa la iska soo daayay sidii kuwii hore oo kale. taariikhdu markay mareysay 2000 waxaa xilka loo magacaabay ama ay u dhiibteen Itoobiyaanku Cabdirashiid
duulane waxaan xilka laga qaaday 2003 bishii Oktoobar 2003 madaxweyne Cabdirashiid Duulane waxaa xilka qaadistiisa marmarsiinyo looga dhigay in maamulkiisu yahay madaxdii Soomaaliyeed fikirkooduna uu yahay Soomaali weyn waxaa kale oo lagu eedeeyay muddadii uu talada hayay in ciidanka ONLF iyo taageeradoodu aad u sii batay sidaas darteed inuusan maarta xilka sii hayn karin laakiin asaga lama xidhin ee waxaa xabsiga lagu guray dad badan oo dawladdiisa ka tirsanaa waxaa kale oo shahaadooyinkoodii iyo warqadihii aqoonta laga qaaday dad badan oo aqoon-yahan ahaayoo ama qaar macallimiin ahaa iyo shaqooyin hayay taariikhdu markay maraysay 2003 waxaa xilkii loo magacaabay madaxweyne Cabdi Jibriil waxaana xilkii laga qaaday Oktoobar 2005 wuxuu hayay 2 sano oo kaliya Oktoobar 2005 waxaa xilkii loo magacaabay Cabdullaahi Xasan Maxamed Cabdullaahi Lubuur waxaana xilkii laga qaaday Oktoobar 2008 wuxuu xilka hayay 3 sano waxaa xilkii loo magacaabay Oktoobar 2008 ninkii la odhan jiray Daa'uud Maxamed Cali waa Daa'uud Axmaare waxaana xilkii laga xayuubiyay 2010 2 sano ayuu xilka hayay waxaa xilkii loo magacaabay taariikhdu markay 2010 Cabdi Ilay waxaana laga qaaday 2018 bishii 8 waxaan filayaa ninkii ugu xildheeraa buu ahaayo 8 sano ayuu kursiga ku fadhiyay waxaan maqli jiray daqsi ururay haan ma bujiyo maalinkii Cabdi Ilay xilka laga qaadayay 30,000 oo askari oo new police iyo maleeshiyaad jinni iyo jaamba deegaanka way joogeen wiilal yar yara oo Oromo oo helicopter wata ayaa madaxtooyada ka qaatay waa nasiib darro Soomaalidu iyada isu gabal weyn iyadoo bay isu geesiya laakiin markii la arko wiil yar oo Oromo ah balag laho xagga ka yimaaday ayay raganimadu ka bixi ka dhamaanba gab madaxweynaha jeclaayeen aabada uu nahayeen markii wiilkii Oromka ay yiri la soo qaado sidii waxar yar oo qol ku xidhnayd ayarba saa loola soo dhaaqay waxaan maqli jiray reer Geedi ayaa meel degay kolkii intii oodihii la goranayo oo xoolihii la oodayo oo hawl lagu mashquulsan yahay ayuu qof qayri hayo oo soo yiri waa heerkiiba ku soo dhacay saalaydi maxaa ku dhacay halkaas yiri hebel baa la dilay halkaas la kala orday mid baa intuu orday nahanti qoryaha wata saabka qorigii marka la soo baxayo mare ku duuduubano qorigii uu sifeeyo nagayta la baashi jiray qasnadeen khadri saabka gadaanta waxa weeye gadaanka qoryo kala soo bax qoryo yucub waxaantii uu kala soo baxayo baagi xagee meel bay ugu sheegtay wixii oo dhan uu soo arooriyay kolkuu intuu isku wada rakibay qori caadi ah ka dhigay u baahan yahay in laga shanqariyo uu isku hubsaday ayuu wuxuu yiri horta ninka yaa dilay wuri kii soo qaylinayay ayaa yiri Axmaaraa dishay
في حمارة شيء قال لي ها حمارة ضدلي نما لا يقدر بير يا حساء واي همر كوريا ودتي هذيك قبلها يا قوريجي إذا مالك سوق هذا حتى أمك سوق أنتي قوريجي إنجنيير ودي نينك محل بكاي لا دلال سلام صد تخصي وحنا عاص ما يوحوا الربي رير هبل بادلي هاي يجا سوق قبلوين سومالي سوما رير هبل بادلي إنتي اللي يراهدو إنه أفر يشان كذا سوق هذا الربي كل لكن دي توبيت هاي يا ودوان كروي خوان نصيب درو dadkeenniina iyagu isku haystaan qori geed yar baalkii isku haystaan iyagu qubta isku hayaan waa nasiib dar haddii Ethiopia saa u riixaysay iyo hadday hantidaadu dhacaysay iyo hadday kadeedaysabana saa un looga foorarsanayo 30,000 oo askari oo hubkoodii iyo awooddoodiiba haysta ninka haystee ayar helicopter lagu qaatay markii sii horana dee markii laga hadlahay geeska Afrika baandho ama dee Soomaaliya iyo dhulkan oo dhanba ka sheeganaayo ciidan haway la baxay farda awliyo oo soo orday haystay haddayna difaaci karin asuusan asagu isdifaaci karin ha ciidanka loo sameystay ciidanka waxa loo sameeyay ma shacabka ma garanayo kullay waa un tala xumo Ethiopia dalkan ma laha dadkuna Ethiopian ma ah wax wanaagana oo ma haysee in la iska difaaca xaq loo leeyahay marka waxa la rabay ka Ethiopia xataa raaca inuu fikirkii qaato oranayay geel jire geela wuuna wada jiraa wuuna kala jiraa dee dadkiisa inuu galay ahay Ethiopia haduu galay xataa oo dadkiisa ilaaliyo dalkiisa ilaaliyo حوالي كلا ليه هاي مشاركنا وكقاطع باشا لكن سجين تلا صوصة في ذلك السين لقول الله أيوه مركي يدو لواتها سوين سنة أسوق شعب سكدقو أو فورر صادو هو حوي هذا اللي توي إلهي أمد الجميسي هكذا القاضي أنت عم كدينه تاريخ لأن كور رميني وعتيو دميسي قد ما سنتين